السلام عليكم وولالكينا مستر ماسك aka mudane mow fahmi sheekadan waxa la yiraahdaa caanow anaa ku ciilay bal meel iga gal waxa la ciilayaa waa qoys caan ah oo youtuber ah cid ciilaysana lama garanayo ummad aan la garaneyn ayaa nolosha nacsiisay had iyo habeen hurdana u diiday ku kaliftay inay ku dhiiran waayaan inay qabtaan shaqooyinkoodii maalinle youtube-na ay muuqaal soo geliyaan balaayo markay iska ka laalaadiso isla mar ahaantaana la garanayo si baa la isaga furfuraaye laakiin balaayo aan la garaneyn marka iska ka laalaadiso walaalay idaana kugu deyn weydo والله هو مشاكل جونية صاحب يال قويس كان يوتيوبر هذا إنه ما أنت موقال كأنه كسوق قادني أيام مالن مال ما كم إذا وحق وصار عذي فرين هنجبات باللو قادي هو فرين توحبة كمان يسوق قاعدين لكن شكلي مركز ما وحي يسوب الشيء إن أي نلوشو ذو بقان زي هذا بوحد دعين شيء كذا هذا أنا كو هي أو كو فاهنية لكن هدية سيحان يسيد شحاجة سوق بسو سوفريزو كصديق كلا شيء كذا صادق وسوع عشان يسيد دبكة كهدمان أوكي شيء كذا أنا هروج سعون ناين تنا هروج سعون هل متسمح جالك تدوينها تكو عصوبتها سبسكرايب muuqaalka like hal midna i raaci team tiktok dad kamid tahayna ciwaanka yare ku muuqda soo follow gare muuqaalkan xaqiisa hoose ayaan linkigiisa ku soo dhigay barta tiktok ana kugu keenay muuqaalada ana adiga rabta dhanka haya tiktok na kugu keeno waa account cusub ku yaaca follow soo dhaha ugu yaraan wankii hala gaarsiiyo waatay hadaba madaxaynu u galo barnaamijkeena maanta saaxiibayaal badana dadka social media caanka ka ah waxa soo gaadha fariimo hanjabaad ah oo aan la garanayn cidda soo dirtay laakiin fariimahaasi badankoodu waa iska kaftan iyo inay qaar kamid ah dadka ku xidhan oo taageerayaashooda kamid ah ay cabsi galiyay sidaahdaan qaar iska dhib badan oo boorin dareemay oo isiri war qofkana taageertaan madka cabsiisana oo fariimo cabsi oo dirtaan laakiin marka qaar waxa dhacda in fariimo hanjabaad ah kaftana aan ahayn oo serious ay soo gaadhaan marka qoyskan waxa soo gaaray fariimo hanjabaad ah oo bilowgii hore kaftan moodayeen laakiin sheekadii ay kaftan ka gudubtay hadaba saaxiibayaal qoyskan marka hore ay baro ninka waxa lagu magacaabaa Roman da'diisuna waa 39 jir xagga gabadhana lagu magacaabo Britney da'deeduna ay tahay 31 sano dhacdadan hadaba waqtiga ay qabsanayso waa sanada 2020 waa qoys sida caadiga farxad isaga de sida social media laga arko ayaga iyo ubadkooda bartooda youtube-na hadii aad tagtid waxaad arkaysaa oo ogaanaysaa inay yihiin dad caan ah waliba ay kamid yihiin dadka baraha bulshada siiba barta youtube uga caansan muuqaalada hadaba barta youtube-ka soo galiyaan waa muuqaalo iska easy ah muuqaalo family ah ayaga oo caruurtooda dhex jooga vlogging sameynaya yani badana waxay muuqaalo ka soo sameeyaan noloshooda maalinle bay soo duubaan barta youtube keenaan youtube marka loo eegana qoyskani waxay kamid yihiin qoysaska ugu horeeyay ee barta youtube soo gala sheeganayaan youtube waxay bilaabeen sanadii 2013 bismillah waa waqti hore 2013 xilli dadka badankooda bbc ay war ka sugi jireen ay dadkana youtube muuqaalo soo dhigi jireen hadaba qoyskan ayaa mashaakilku waxa uu bilaabmay bilowgii sanadii 2019 qoyskan sida caadiga ah muuqaalo joogta ay soo gali jireen barta youtube-ka family far badan asxaab far badan caruur far badan dad caadiya dad badan baad ku xidhnaa muuqaaladooda la socday caadada umaanay lahayn inay barta youtube si yaro dhayal looga maqnaadaan hadaba bilowgii sanadii 2019 ayaa dadka ku xidhnaa waxay saaxadda ka waayeen muddo hal bila hayay oo dadkana si dhayal kumaanay maqnaan jirin say wax ugu dhaceen haddana dadku waxay sidaahdeen hal bil waxba maaha waxa laga yaabaa inay break ka qaadanayaan oo iska yara nasanayaan soo dadku way kala qaybsameen qaar xoogay yara yaabay iyo qaar sidii war way iska yara nasanayaan waxba saas oo dhan ay soo raacraacnina laakiin sheekada halka kuma istaagin muddo 8 bilooda ay qoyskiisa hadda youtube ka maqnaayeen dadkii daawadayaasha ahaa ee ku xidhnaa yaab xataa fariin maanay soo dhigin oo maanay odhan waraan maqnaanaaya deesaa noola socda wax muuqaala maanay soo duubin oo maanay ku wargelin oo maanay odhan dee dhibsaas ayaa dhacday xataa maanay odhan war youtube waanu ka maqnaanina hal mar bay si joogto ah muddo 8 bilood ah u qarsoomeen arrintaasi oo akhyaartii ku xidhnayd ku abuurtay warwar iyo walaac isna weydiiyaan war qoyskii maxaa ku dhacay yaa qaatay maxaa qariyay heer waxay gaadheen baraha bulshada la soo geliyo in qoyskaasi la afduubtay oo aanay jooginba taageerayaashii way walaaceen waxay u soo yaaceen badankoodu dhanka iyo Instagram oo dee meesha dadka caanka hadii youtube laga waayo dhaqdhaqaaqooda laga arko Instagram iyo waxyaabaha yaryar sawiraanta iyo waxyaabaha soo dhigayaan marka waxay isleedeen maybe updates-kooda waxay soo galayaan Instagram-ka by the way Instagram-ka kan idin muuqda iga soo follow gareeya halkaasi badana waan ku sheekaysan karaa fariimo caadi ah soo diri kartaan idinka jawaabi karaa updates-ka iyo waxba soo kordhaad kala socon kartaan yani xoogay halkan way sigaar dhawaana okay hore aynu socono dadka hadaba marka Instagram-koodii galeen ay isiraadeen fiiriya horta gabadhii Britney ahayd beerteedii Instagram-ka gabiyahan bahawada ay ka saartay haya Roman markii la sidaha la fiiriyo asagu laba accounts ayuu ku lahaa barta Instagram-ka account-yadiisi mid kamid ah asna sidoo kale hawada ayaa laga saaray mid kaliya ayaa soo hadhay bal
cabsidii ayaa sii siyaatay waxaa la yidhi war heedhe qoyskii gebigiisaba say u dhan yihiin waa laaf duubtay sidan caadi kuma aha arrintu marka halkaasi taagan tahay dadku laba ayay u qaybsameen qaar waa kuwa is yidhi qoyskan mushkilad ayaa qabsatay maybe waa laaf duubtay maybe waa la laayay maya si kale ayay mushkilad dhanka faamilka u soo gashay qaarna waa in yaroo kamid ma badna kuwaasi waxay is yidhaahdeen wax macquula inay iska nasanayaan weli badankoodu laakiin waxay isku raaceen in qoyskan ay mushkilad soo food saartay haddaba 8 bilood kadib sanadii 2020 ayaa Roman waxa uu bartoodii YouTube-ka soo galiyay muuqaal si hore soo muuqaal isaga soo dhaxtuuray hayay xanfresh bal soo yaaca waa la wada sugayay bal in xataa neef yarun laga helo ummadoo dhan baa sugayay dadkii ku xidhnaa qaar fara badan oo garanayn oo sheekada dib ka ogaaday baa ku soo yaacay laakiin arrinta la yaab ka badan ayaa waxay tahay muuqaalkaasi waxa uu iska ahaa mid vlog ah oo iska caadi ah normal ah gibi ahaanna muuqaalkaasi waxa uu dhammaaday min bilow ilaa dhammaad ayaga oon erey ka odhan maqnaashiyoodii kamaanay hadal sababtay u maqnaayeen meeshay ku maqnaayeen waxa ku dhacay xoogay ereyo yaryar oo dulmar ah si cadna aanay tooshka ugu ifinayn ayaa afkooda ka soo baxbaxday laakiin wejigooda waxaad ka dareemaysaa in ay wax weyn qaranayaan waa tahay dadkii horta way kala degeen oo waxay yiraahdeen finally waxaan ogaanay inay nool yihiin laakiin shakiga iyo warwarkii ma aanu dhammaan dadku waxay doonayaan inay ogaadaan sababta ka dambeysay inay intaasi oo dhan ay maqnaadaan intaas waxay ka dambeysay marmarka qaar muuqaalo waa ay soo gelin jireen laakiin haddii aad muuqaaladaasi commentiga u dhaadhacdid waxaad arkaysaa dadka badankoodu inay qoyskan su'aalo weydiinayaan su'aalahaasi oo ah maxaa idinku dhacay xageed ka dhacdeen bal sheekada nooga dhaca wax nafaansiya see wax u jiraan laakiin fariimahaasi iyo su'aalahaasi oo dhan gebi ahaanba waa iska indhatirayeen waxay isku dayeen inay marmarka qaar muuqaalo yaroo caadi u eg inay soo geliyaan ilaa maalin maalmaha ka mid ah ay bartooda YouTube-ka soo geliyeen muuqaalkii ugu la yaabka badnaa muuqaalkan oo ay daaha kaga qaadayaan see wax ugu dhaceen meeshay ku maqnaayeen kagana jawaabayeen jawaabihii ay u baahnaayeen daawadayaashu muuqaal waqtigaas ayada ah internetka gilgilay haddaba title-ka videogaas ayaa waxa ahaa waxaana lagu khasbay in aan YouTube ka baxno sheekada FBI-da oo dhammaystiran muuqaalkaasi gudihiisa haddaba waxay ku faahfaahiyeen runtii sheekooyin la yaab badan meeshay ku maqnaayeen masiibooyinkii qabsaday sheekooyin waxay kaga sheekeeyeen runtii aad u la yaab badan oo daawadayaashoodii waxa ka soo hadhay what the hell are you talking about waryadeen maxaa sheegoysaan micnaha annaga ma naga cabsiinoysaan we've been dealing with some extremely scary stalkers waxay sheegeen oo ka sheekeeyeen in noloshoodii la daba dhigay ummad aan la garanayn qaar dabagalayaal oo stalkers ah ayuunbaa faamilkii la daba dhigay waxay sheegeen in ay dad aan la garanayn fariimo u soo diri jireen fariimahaasina kaliya hata aanu ahayn ka cabsiin balse ay noloshoodii qirinqiir geliyeen heer waxay gaadheen fariimaha cabsida loo soo dirayay in maalmaha ka mid ah ay soo gaadho fariin u sheegaysa in la gaadhay oo la joogo gabagabadii noloshooda isla mar ahaantaana ay kooxdani noloshooda dhaafin doonaan allahayaay sheekadu waa cabsi dil ayay maraysaa heer waxaa la gaadhsiiyey waxyaabo fara badan ayaa loogu muujiyey qoyskan hanjabaadahani inaanay kaliya ta ku koobnayn fariimo la iska soo dirtiro iyo hanjabaado laakiin mararka qaar waxaa dhacaysay in si practical ah loo tuso in ay waxani wax ka jiraan waxaa dhacday habeenada ka mid a xilli goor dambaa welibana dhulku mugdi yahay dhulku iska rooban yahay in qoyskani ayagoo dhammaystiran oo guriga si degan isaga jooga cabsidan iyo mashaakilkana isaga furan yihiin si keliisa hal mar korontadii laga damiyey ayadoo qoyskan korontada ku xidhnayd aanay ahayn korontooyinkii caadiga ee xadhkaha lagu soo gelin jiray haddii la doono dibadda xadhigga laga goynayay korontadu waxay ugu shaqaynaysay qaab electronic ah marka waxaa dhacday in qoyska gurigooda gebi ahaanba la hagarayo haakin lagu sameeyo qaar haakarisa ay maamulaan ay korontadii ku ciyaaraan ay damdamiyaan hal mar ayaa korontadii dam laga siiyey cabsi waxay siyaaradeen khalaas waa idiin dhammaatay waayo dhacdooyin noocan iyo hadda ka hor maanay experience hore umaanay arag mushkiladdu halka kuma taagna heer waxay gaadhsiiyeen kooxdani haakariskaay ay nambaraantoodii gaarka ahaa ay soo helaan welibana fariimo ay uga soo daraan hanjabaada waa taleefanadoodii gaarka ahaa oo aanay hayn cid ka baxsan qoyskooda iyo dadka asxaabtooda u dhow welibana haakariskana halkaa kumaana istaagina waxay sameeyeen nambaraantoodii ayay baraha bulshada ku faafiyeen qof weliba iska soo wacay markaas ayaa diidna waxay go'aan ku gaadheen inay gebi ahaanba iska wada bedelaan nambaraantoodii si aanay cidna u soo raadsan oo nambaraan cusub oo gaaray u qaateen laakiin kooxdani waxay ku guulaysteen mar kale inay soo helaan nambaraantoodii abti oo soo waceen markaasay fariimo soo direen soo ma jeedaan annaga meelaad nooga baxsan kartaan haba yaraatee ma jirto
nambaraantanaad beddelaysaana joojiya way noqon weyday koronto yaroo laydinka jara iyo hanjabaad baad u barateena toos baynu idinku iman yacni marka qaar waxaa dhici jirta in codad caadiya loo soo duubo oo lagu hanjabo inaanay mar kale isku dayin inay nambaraantooda beddelaan qoyskii waxaa soo food saartay labadoodiiba Britney iyo ninkeeda heer waxay gaadhsiiyeen iskaba dhaafay YouTube iyo waxa intay faraha ka qaadeen ay go'aan ku gaadheen bal horta inay YouTube joojiyaan ilaa ay mushkiladan iyo balaayadan soo food saartay ay xal u helayaan heer waxay gaadheen kaliya ay ka fikiraan badbaadada noloshooda iyo badbaadada ubadkooda heer waxay gaadheen qoyskii ay dawladda badbaado weydiistaan ay yidhaahdaan war noloshanadii qirinqiir bay ku jirtahay bal naga warhaya dawladdii ayaa waxay u samaysay ciidamo gaar ah oo guryahooda ka warhaya oo isha ku haya haddii lacalla qoyskaasi weerar lagu soo qaado oo guryahooda lagu soo weeraro horta iyada socodiyo way joojiyeen way isdaayeen socodiyo farxad iyo muuqaalo la soo duuduubayay iyo suuq la tig waxaasi way joojiyeen ayagu waxay u haysteen haddii dawladdu ay u keento dad ilaala ah oo ka warhaya inay si ay mushkiladu kaga hadhiso laakiin markii ay dawladdu u keentay ilaalo ka warhaysa ayayba mashaakiladii ugu waaweynaa u bilaabmeen waxaa loo soo dirayay fariimo hanjabaada kuwii ugu adkaa ugu cabsida badnaa hanjabaadaha ay kooxdani qarsoon ee la garanayn ay u soo dirayeen waxay ahaayeen kuwo welibana specific oo gaar ah sida in la yidhaahdo gurigiinna ayaan gebi ahaanba idinku dulgubi doonaa in la yidhaahdo waan idin deldeli doonaa mid ayaan idiin wada deldeli doonaa yacni qaabkii loo dili lahaa ayaaba loo sharaxaya welibana fariimo marka hore isbuuciiba 2 jeer waxbaan iminka waxay bilaabeen in si maalinle ah ay fariimahani hanjabaadaha ay ugu soo diraan heer waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ay fariin kooxdani qarsoon ay u soo diraan bal hadda sawiro waa nin iyo xaaskiisa wada fadhiya fariin qoraal dheer oo warqad ay soo gaadhay wada fadhiistaan ay akhrinayaan fariintaan ay ku sharaxayaan dhiciska iyo qaabka ay u sameeyaan howlgallada dumarka uur kale ilmaha looga soo rido waqtigaasi ayada xaaskiisa Britney uur ayay lahayd qoraalkiisa waxay ku sharaxayaan sida loo googooyo maamada uur kale sida ilmaha looga soo rido waxa lagu sameeyo yacni ereyo wada cabsiya sawiro ciidan loo soo diraya waa maamo uur leh oo lagu cabsiinayo iska daa wax kale ilmihii yaraa uurka ku jiray ayay walaac ku abuureen isweydiiyay hore dhado caafimaad qabatalo dunida ma gaari doontaa sheekada iyo la yaabkuba way dambeeyaane hanjabaadahani waxay ahaayeen kuwa horta aan kala joogsi lahayn welibana marba markaas dambaysa sii fool xumaanayay heer waxay gaadheen qoyskani FBI-da magangeliyo weydiistaan inay caawiyaan FBI-duna ma fargeliyaan ilaa inay arrintu tahay mid halisa oo serious mooyaane waxyaabo yaryar oo basiid oo iska easy oo dad arrimahaasi ma falgeliyaan haddaba sheekadii haya waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in uu dhinto shakhsi qoyska ka tirsan shakhsigu haba dhinto ma xumee waxay u soo direen fariin hanjabaada oo adag oo aanay nooceeda weli hore u arag waxay ku yidhaahdeen ma arkaysaan hanjabaada ma wadaysaan waa mid ka mid ah cashiraantaan idin tusnay amarkanaga u hogaansada annaga FBI baan wax naga qaadin Interpol ciidamada adduunka ugu halista badan haddaad noogu yeedhaan waxba nagama qaadi karaan annaga sheekadana haddaad sii xumaysaan hal qof baa imika idinka maqane way sii xumaan doontaa welibana waxay ku yidhaahdeen haddaad xaadirtaan janaasada qofkaasi qoyska ka tirsan gurigaad ku jirtaan idinkoo ku jiraan hal mar gebigiisaba qarxinaynaa fiiri annagu waxaan awood u leenahay inaan gurigiina fargelino korontooyinka dadamino kaamarooyinka wada furfurno telefoonadiina shidno wax walba awood baan u leenahay waxaan sidoo kale awood u leenahay in gurigaasi gebigiisaba bambo weyn inta ku xidhno hal mar hawadeeda ku cunno heer waxay gaadhsiiyeen qof ka dhintay xataa janaasadiisa ay xaadir kari waayaan cabsi ragani Call of Duty bay si practical oo la ciyaarayaan waa niman cabsiya waa rag hackerisa professional aad u halis badan gurigooda waxaa ugu xidhnaa kaamarooyin ayaa meelaha qaar ku xidhnaa haddaba waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in intay hagareeyaan kaamarooyinkaasi guriga ugu xidhan deetana ay muuqaalo guriga gudihiisa ka duubaan bal sawiro maalin maalmaha ka mid ah adoo iska fadhiya gurigaaga ayaaban in video lagu soo diro taleefankaaga video lagu soo diro videogii markaad ku dhufatid oo daawatidna waaba adiga gurigaaga dhex wareegaya adiga caruurtaada iyo qoyskaaga guriga dhex jooga goormana laga duubay ciidan naga duubtay maxay ayagoon war isku hayn oo iska hurda ayaa haydee doonaan muuqaalo intay ka duubaan u soo dirayaan oo odhanayaan fiiriya airbus ka saxseexanaysa annaguna waan daawanaa second kasta daqiiqad kasta tallaabo qaldan baynu qaadi karraa ummadan masiibada ah ee hackeriska ee halista badan maxay qoyska masaakiinta ugu mashquulayaan bal may ummadahan kale dhibta badan weerarana ma aqaan qoyskuna mala duldhigay waxay gaadhsiiyeen qoyskii inay hadh iyo habeen ku noolaadaan welwer iyo walaac isla mar ahaantaana ay aaminaan in waqti walba kooxdani ay guriga ugu soo geli karaan ficilo qaldan ay u geysan karaan dili karaan maadaama already casharaan badan la tusay inta dhibaatooyinka iyo mashaakilada ay ku socdaan mar waliba si joogta waxay ula xiriirayeen
oo meelaha ay wax marayaan oo la socodsiin jireen booliiska. qoyskan stress joogta ay ku noolaayeen. heer waxay gaadheen kooxdani ay farageliyaan waxyaabo fara badan oo qoyskan muhiim u ahaa, sida shirkadaha insurance-ga, shirkadihii caymiska ay kula jireen in la cancel gareeyo. kadis maalmaha kamid ah shirkadii caymiska soo baxdo tiri wareedhaha maxaa dhacay, maxaa loo cancel gareeyay, see wuxuu jiraa mushkilada bal noo sheega. hayay oo goormaana wax cancel gareynay. waxyaabaha gaarka u ah ayaa intay farageliyaan waxay doonaan ay ka sameynayeen. adigu mashaakil joogta, cabsi joogta, youtube-ka faraha maxaa youtube yala noloshoodii baa qaranqeer ku jirta. ma noolaanaysaan berri, ma dhimanaysaan, ma soo toosaysaan berri, wax ma cuni doontaan. noloshoodii jiritaankoodiiba intay yaraatay bay godka jiirka gashay. haddaba intaasi ay qoyskani mashaakilkan iyo dhibaatooyinkani ku socdeen, horta dawladdu maanay hawl yaraysan. ayadna intaasi mar waliba dhan bay ka marisay, mar waliba sheekada dabagal bay ku sameynayeen. waa la isugu tegey. ugu dambayn waxaa lagu guulaystay in qoladii dhibka ku haysay ee haakariska ahaa ee qoyskan nafta u keenay gacanta lagu dhigo. markii lagu yiri oo loo sheegay wareedhaha iska nafisa hadeed kooxdii gacantayna ku haynaa waa noqo qabanay, noloshaana ku haynaa iska nafisa. still way ka digi weyday qoyskan. waxay isiraadeen armay dad kala qabteen, way aamin waayeen, ku kalsoonaan waayeen. waa dad had iyo habeenkii oo la ilaalinayo oo police joogaan oo ilaalo laga hayo, haddana dhibaato lagu hayay. ilaa in muddaha markay joogeen wax fariimo loo soo diray ay waayeen, sidaas ay ku aamineen in ugu dambayn kooxdii dhibka ku haysay gacanta lagu dhigay. wallaahi qoyskan mushkilad baa qabsatay. balka hor maalmaha kamid ah fariin ku soo dhacda kale waraa gurigaaga yahanba waan idin qarxinaa, gantaal baynu hal mar bum idinku siinaynaa. qoyskani markii dambe waxay ka sheekeeyeen markii xaaladu kala degeen ay ku kalsoonaadeen inay wax walba sheegi karaan. waxay ka sheekeeyeen runtii dhacdooyin aad u la yaab badan oo kooxdan kala kulmeen. heer waxay gaadheen ay xataa waxyaabo qaar ka gaabsadaan ay ka warrami kari waayaan. yacni waxyaabo aad u foofool xun ayay kooxdan u geysatay. si kasta ha ahaatee qoyskan ugu dambe bartoodii youtube ay ku soo noqdeen, sidoodiiba ay uga bariisaystaan oo muuqaaladii iyo waxoodii si joogta u soo geliyaan. haatan jawigoodu waa okay, xaaladahoodu waa okay, laakiin noloshooda marba qaranqeer la geliyay. si kasta saaxiibayaal muuqaalkeena maanta halkaas ayaan ku hakinaynaa. waad ku mahadsantiin daawashada. muuqaalka like saara. intaanu muuqaalkan muuqaal kaloo xiiso la sugan doono waxaad ka tagaa sidaas iyo ammaan Allah. Goodbye.